ninkan hortiina ka muuqda wuxuu sameeyay waxaad u yaab badan oo aad la yaabi doontaan. ninkan wuxuu soo qabtay ilmo yar oo aan wax dambiye gelin, wuxuuna ku qarqiyay biyo ilaa uu ka dhintay. arrinkaasna waxaa ka sii yaab badan kadib markii uu falkaas sameeyey ninkani wuxuu soo galay live uu ka soo galay Facebookiisa sidii qof aan waxba samayn oo kale. hadda maxay tahay sababta uu waxaas u sameeyey ninkani? sabab weyn ayaa ka dambaysa arrinka ay la socdaa wada muuqaalka ilaa dhammaadkiisa si aynu isla ogaano siday wax u dhaceen. qisadeena maanta waxay ka bilaabanaysaa gabadh lagu magacaabo Krista. gabadhan lagu magacaabo Krista waxay jirtay 22 sano. waxay ahayd gabadh iska caadi ah oo nolosheeda iskaga nool si dabiici ah. waxayna lahayd gabadhani wiil yar oo ay walaal ahaayeen oo aad u yaraa, laguna magacaabay Aishon. wiilkan yar isagoo daadiisu ay maraysa 6 jir oo kaliya ayaa waxa kala tegay hooyadii iyo aabihii. waana arrin aan wanaagsanayn ilmo yar oo intaa leegin hooyadii iyo aabihii ay isfuraan. si kastaba ahaatee markii waalidka ay kala tegeen isaga iyo walaashiisii ka weynaydba waxaa loo geeyay ayeedood, iyada ayna la noolaayeen oo waalidkood waxay iska raacdeen noloshoodii kale. waxay la noolaayeen labadii carruur ayeedood oo lagu magacaabay Jennifer, da'deeduna ay maraysay 67 sano. noloshooduna dabcan waxay ku socotay si wanaagsan oo waxay ku noolaayeen nolol degan. ayeedoodna waxay ahayd ayeeyo jecel oo u dabacsan, wayna ilaalin jirtay oo si fiican ay u korinaysay labadoodaba. saddexdooduna waxay ku wada noolaayeen guri oo xaalkoodu u deganaa. wiilkii yaraa ee 6 jirka ahaana wuxuu ahaa mid iskuulkiisa dhigta. gabadhii weyneed ee Krista iyaduna waxay ahayd mid jecel inay dadaasho oo waxay ahayd mid shaqaysa. waxayna ka shaqaynaysay mid ka mid ah makhaayadaha cuntada oo waxay u karin jirtay cuntada makhaayadaas. waqtiga ay shaqayn jirtay gabadhanna wuxuu ahaa waqtiga habeenkii. waxay shaqayn jirtay habeenka oo dhan ilaa laga gaadhayo subaxa marka ay tahayna waxay aadi jirtay gurigooda oo way seexan jirtay. si kastaba ahaatee xaalku siduu sidaas u ahaa waxa socday maalmihii. maalin maalmaha ka midana gabadhii lagu magacaabay Krista waxay isbarteen nin lagu magacaabo Terence. labadoodana waxay ku kulmeen sikadiisa, wayna wada hadleen oo way isfahmeen nambaradii ayna kala qaateen. sidaasna waxay ku noqdeen kuwo xiriir wada sameeya. Terence-kani wuxuu jiray waqtigaa 20 sano, iyaduna sideen hore u soo sheegnay waxay jirtay 22 sano. waxayna u aragtay gabadhan inuu ku habboon yahay ninkani, sababtoo wuxuu ahaa inta uu la joogo mid si wanaagsan u dhaqmo oo iska dhiga qof wanaagsan. ragguna inta badan way sameeyaan sidan oo kale, oo si kasta uu xun yahay marka koobaad ee gabadha uu la kulmo wuxuu isku dayaa inuu isu yeelo shakhsiyad iyo suurad qurxoon. Terence-na sidaas oo kale ayuu ahaa. wuxuuna u matali jiray gabadha inuu yahay qof miskiin oo wanaagsan, qof dadaalo oo noloshiisa dhisaya. wuxuuna u sheegi jiray inuu doonayo inuu farxaddeeda ka shaqeeyo mar walba. gabadha miskiinadana way iska rumaysatay wayna jeclaatay ninkan. muddo ayna wada socdeen oo aanay ninkan wax xun ka arag. laakiin dhab ahaantii ninkan noloshiisu waxay ahayd mid aad u xun. wuxuu ahaa nin isticmaalo oo ka shaqeeya maandooriyaasha. wuxuuna ahaa mid la socda kooxa maafiya oo dhibaatooyin badan sameeya. laakiin markuu gabadhaas u yimaado wuxuu ahaa shakhsi wanaagsan oo edeb leh. wuxuu ahaa mid kaxeeya oo meelo kala duwan geeya gabadhan, waxna aan ka agran oo siiya waxa ay doonto. laakiin wuxuu ka qarin jiray uun intiisa xun, sida maafiyada uu la socdo iyo daroogooyinka uu isticmaalo, iyo sidoo kale wuxuu ahaa mid dumar kale la hadla. iyaduna may ogeyn waxyaabahaas oo dhan, laakiin waqti kadib way ku baraarugtay arrimahan uu ka qarinayay ninkani. dabcan beentu si kastoo ay u dheeraata marun waa la ogaan doonaa. gabadhiina way ogaatay in ninkan uu xumaantaas oo dhan sameeyo. waxayna bilowday inay ninkan ka warwarto oo ay ka cabsato. gabadhanna waxay ahayd mid ku fikirtay inay nolol wanaagsan hesho oo ay dadaasho. markaa way ka cabsanaysay qof noocan oo kale inuu nolosheedii ku soo biiray. waxayna rabtay inay ninkan iskaga hadho, laakiin may doonayn inay hal marun ku tiraahdo waan kala hadhaynaa oo kuma rabo, sababtaa uu wanaagsanaa ninkani oo wax dhiba u muugaysan jirin. hal marna kuma odhan karta inta ay timaadda kuma rabo. markaa waxay ka fikiraysay qaab kale oo ay ugu hadhi lahayd ninkan. waxayna go'aansatay inay ninkan meerimeeriso oo ay ka yara fogaato ilaa uu isagu iska naco oo marka dambe uu iskaga hadho. waxayna bilowday inay telefoonka ku dhagaysato, inay ka meermeerto haddii uu la ballamo, inay uga jawaabi weydo fariimaha uu soo diro si uu u naco ugu dambayna uga tago. laakiin ninkani muu ka tegin. si walba ay ku samaynaysayna kamuu tegin gabadhii, ilaa ugu dambayn ay go'aansatay inay si toos u wajahdo oo ay runta u soo sheegto.
maalin maalmaha ka midana way u tagteen ninkii waxayna u sheegtay inay soo ogaatay waxa uu sameeyo oo dhan iyo arrimii uu ka qarinayay. markaa waxay ku tiri iskuma soo baxayna labadeenu ayna kala daa. markaa intaas ku tiri ninkii falcelintiisu waxay ahayd mid degan. wuxuuna ugu jawaabay haddii go'aankan aad adigu qaadatay uu adiga kaa soo go'ay oo naftaada darteed aad u qaadatay go'aankan waa sax. micnaha haddii aad igu nacday daroogada aan isticmaalay iyo dumarka kale aan la socdo waa caadi ayuu ku yidhi waanan kaa tegayaa. laakiin haddii sababtaad iiga tegaysa ay tahay nin kale oo aad jeclaatay dartii ogow wixii kugu dhaca adiga ayaa isu geystay. gabadhiina waxay ugu jawaabtay ma jiraan nin kale oo meesha ku jira oo aan dartii kaaga tegayo. hadalkan aad sheegaysana waxba kama jiraan. adigana waxaan kaaga tegayaa keliya waxaan ku arkay inaan adigu habboonayn. sidaa darteed baan rabaa inaynu kala hadhno. isaguna muu isadkayn wuxuuna ku yidhi waa sax haddii ay sidaas tahay. waan iskaga kaa tegayaa si aad noloshaada ugu noolaato. laakiin maalintaan ogaaday inaad nin kale dartii iga tagtay maalintaas waad ka qoomamayn doontaa waxaad samaysay. si kastaba ahaatee way kala tegeen oo mid kastaaba waddadiisa ayuu maray. wakhtigaasna dabcan gabadhan nin kale nolosheeda kumuu jirin. nin kale dartiina ugamay tegin ninkan. waxa socday hal usbuuc. gabadhiina nolosheedii hore ayay u sii raacatay. dabcan gabadhan ninkan uma xanibnaanayso oo warkiisa kuma soconayso. hal usbuuc kadibna waxay isbarteen nin kale. ninkaas kale ay isbarteenna waxa lagu magacaabayay Williamson. ninkan markii ay isbarteen gabadhii Krista waxay wada sameeyeen xidhiidh. wayna isku soo dhowaadeen. waqtiga ay fasaxa tahayna way israaci jireen gabadhan iyo ninkani. maalin maalmaha ka midana waxay ahayd maalin ay fasax ku jirtay gabadhii Krista. maalintaasna sidii caadadooda ahayd way soo raaceen. waxayna ahaayeen qaar jawiga soo gadisanaya oo meelo kala duwan aadaya. iyagoo wada socdana waxay soo galeen dukaan lagu magacaabo Wawa. dukaankaas ayay soo galeen si ay uga soo iibsadaan alaab. sikadiisana dukaankaas dhexdiisa waxaa ku arkay labadoodii nin ay saaxiibo yihiin ninkii ay gabadhan wada socon jireen ee Terence. ninkaasina markii uu arkay labadan oo wada socday wuxuu isiri gabadhan imaanay hayn gabadhii ay wada socon jireen Terence. nin kale ayay la socotaa hadda. waxna muu samayna wuxuu iska dhigay midaan waxba ariguuna iska baxay. intaa kadib ninkii markiiba wuxuu la xidhiidhay saaxiibkii Terence. wuxuuna u sheegay inuu arkay gabadhii ay wada socon jireen oo nin kale la socotaa. Terence markii warkaasuu maqlay wuu xanaaqay wuuna la waashay warkan dartii. wuxuuna isiri waan dareensanaa markii horeba inay iga tegaysa nin kale. haddana way isii caddaatay. horena waan ugu digeen haddii ay sidan oo kale samaysay inay ka qoomamayn doonto. way arki doontaa waxaan sameeya ayuu naftiisa ku yidhi. maalintii labaad iyadoo habeenkii uu sii baxaya ka hor intaanay subaxii gaadhin. Terence wuu soo baxay wuxuuna soo aaday gurigii Krista oo ahaa gurigii ayeedeed. dabcan wakhtigaasna wuxuu ahaa mid darooga iska soo dhargiya oo ka dhacsan. gurigaasay una aaday iyadoo Krista aan weli shaqadii ka soo bixin. albaabka una ku qaraacay ilaa islaantii ay soo toostay oo ay la yaabtay cidda saacaddan ku qaraacaysa cidda ay tahay. waxayna istiri waa Krista oo shaqadii ka timi albaabka ka fur. iyadoo haddana Krista ay fura wadatay oo aanay albaabka soo qaraaci jirin. wayna furtay albaabkii iyadoo aan weydiin qofka qaraacaya qofka uu yahay. markii ay furtayna waxay horteeda ka aragtay ninkii Terence ahaa. wayna la yaabtay sababta uu saacaddan ugu soo qaraacay albaabka ninkani. wayna isku ogeyd islaantani inanteeda iyo ninkani inay wada socon jireen. wuxuuna ku yidhi arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlay ee guriga ma soo geli karaa. islaantiina way soo dhoweysay oo waxay soo gelisay gurigii. wakhtigaasna wiilkii yaraa ee Krista ay walaalo ahaayeen wuxuu ahaa mid qolkiisii hurda. wayna wada fadhiisteen islaantii iyo ninkii oo waxay ahaayeen qaar wada hadlaya. Terence-na hal mar ayaa wuxuu soo bixistay midi uu sitay. wuxuuna bilaabay inuu islaantii weyneed la dhacay ilaa ay ka dhimatay. dabcan islaantani waxay ahayd islaan aad u daaweyn oo daadeedu ay gaadhaysa 67 sano. awoodna umay lahayn inay iska celiso wiilkan dhallinyarta ee 25 jirka. si fudud ayuuna u dilay islaantii. intaa kadib wiilkii yaraa ee Krista ay walaalo ahaayeen ayaa maqlay sanqadha oo hurdadii ka soo toosay. wiilkii yaraa ayuuna dhankiisii u soo dhaqaaqay wuuna soo qabtay. wiilka yari wuxuu ahaa mid isku dayay inuu wax iska celiyo uu la dagaalamo ninkan. laakiin wuu ka awood weynaa wuuna soo kaxeeyey oo wuxuu keenay suuliga. suuligana waxaa ku yaalay meel ay ku jiraan biyo. meeshaasay uu wiilkii yaraa madaxa u geliyey wuuna qarqiyey ilaa uu isna ka dhintay. nacaybka uu qaaday wiilkan yar walaashii ayuu rabay ninkan inuu iskaga saaray islaanta iyo wiilka. wuxuuna rabay inuu iyaga ku ciilbaxo. wiilkii yaraa isagana markii uu dilay suuligii ayuu kaga dhex yimi. wuxuuna iska soo fadhiistay daaradii guriga oo wuxuu ahaa mid halkaas ku sugayay gabadhii Krista.
inta ay ka imanaysay ay ka soo baxayso shaqada. Gabadhiina waxba ma ogeyn kamanay warhayn waxaan dhacay. Way iska soo gashay guriga iyadoo daalan oo maanta oo dhan soo shaqaynaysay si ay guriga ugu nasato. Marka ay sidaas soo gashayna waxay aragtay ninka ay kala tageen oo halkaas fadhiya, wuuna soo qabtay iyadiina. Gabadhii waxay isku dayday inay qayliso, laakiin wuxuu ku xagay mididii uu sitay wuxuuna ku yidhi ha hadlin, haddii kale waxaan ku yeelayaa sida aan yeelay ayeeyda iyo walaalka. Wuxuuna tusay sida uu yeelay ayeedeed. Gabadhiina way naxday oo way u qaadan weyday waxaan ay aragtay. Walina wuxuu ku leeyahay ha hadlin haddii kale waan ku dilayaa. Wuxuuna ku yidhi isagoo timaa ka jeedaya hore maanan kuugu sheegin haddii aad iga tagta nin kale sababtii, ogow waad ka qoomamayn doontaa waxa dhaca. Sidoo kale wuxuu u kaxeeyey dhankii suuliga wuxuuna soo tusay walaalkeedii yaraa. Markaasna gabadhii si weyn ay u naxday wayna isku dhex daadatay. Inay oyda way doonaysaa oo oohin ayaa haysa, laakiin ninkii ayaa dul taagan oo ku leh ha ooyin. Markaa waxay ahayd mid gudaa ka dhex hooyaysa iyadoo aan wax coda samaynayn. Intaa kadib wuu soo kaxeeyey gabadhii wuxuuna soo fuushiyey gaadhigiisii uu watay. Gaadhiga si adab loo saarno ayuu ku yidhi haddii aad doonaysa inaad noolaato. Gabadhiina way iska saarnayd gaadhigii oo wuxuu kaxeeyey meel durugsan. Gaadhigiina wuu baarkimay kadibna wuxuu bilaabay inuu gabadhii la hadlo. Wuxuu kala hadlayay sida ay u khiyaantay ee nin kale sababtiisa ay uga tagtay. Intaa kadibna wuxuu u qaaday isla dukaankii lagu arkay iyadoo nin kale la socota ee lagu magacaabayay Wawa. Wuxuuna ku yidhi halkan ayaad la joogtay ninka. Waqtigaasuu ninkani waxaan samaynayaa ee gabadha uu la hadlayana wuxuu ahaa mid darooga iska soo dhargiya oo ka dhacsan. Mana ogeyn waxa uu samaynaya iyo waxa uu ku hadlayo. Sidii qof aad u cabsanayuuna u hadlayay. Gabadhiina dhinaciisa ay fadhidaa oo way naxsan tahay. Intaa ka badanna way awoodi weyday inay u adkaysato. Waxayna si degdeg iskaga furtay daaqadii ay saarnayd wayna carartay. Si degdeg ayaa waxay u gashay dukaankii, waxayna isku tuurtay meeshii gabadhii kaashiyeerka ahayd ay joogtay. oo waxay ku tiri badbaadi ninkani wuxuu soo dilay qoyskayga anigana wuxuu doonayaa inuu i dilo. iyadoo ku dilooyisa kaashiyeerkiina uu soo gaadhay ninkii uuna soo qabtay oo uu soo jiiday. gabadhiina waxay ahayd mid isku dayaysa inay iska caabiso ninkan. iyagoo ishaysta uu isku dayay ninkii inuu gabadhii si qasaba ku soo wado, ayaa waxaa arkay gabadhii shaqaalaha dukaanka ahayd oo ciidankii wacaysa, una sheegaysa ciwaanka dukaanka iyo dhibaatada ay wajahayaan hadda. markii uu arkay gabadhaas oo ciidankii la hadlaysana wuxuu ogaaday in ciidanku ay soo socdaan oo ay imanayaan meesha, wuuna sii daayay gabadhii kadibna uu cararay. wuxuu ka soo baxay dukaankii oo gabadhiina uu kaga yimi, kadibna wuxuu soo fuulay gaadhigiisii uuna baxsaday. wuxuu tegay meel kale oo ka fog dukaankii, halkaasi uuna ku baarkin gareeyay gaadhigii, kadibna wuxuu la soo baxay moobilkiisii wuxuuna soo galay Facebook Live. wuxuu ahaa mid live-kaas dhexdiisa kaga sheekaynaya wixii uu sameeyey, isagoo dawaqsan oo laga dareemayay inuu darooga badan cabsan yahay. mar wuxuu odhanayay gabadhii uu dhibaatada u geystay waan ku jecelahay, mar kale haddana wuxuu ku dhahayay waan ku dili doonaa. mar kale haddana wuu raaligelinayay wuxuuna ku odhanayay waan ka xumahay waxaan ayida iyo walaalka ku sameeyey. adigu ninkani wuu ka dhacsanaa wuxuu ku hadlayana muu kala garanayn, waana laga dareemayay arrinkaas. I love you though. These hoes ain't loyal. No, I really do like you though. I got a lot of love for you. intaa kadibna wuu xidhay live-kii uu ku jiray wuxuuna soo kaxaystay gaadhigiisii. waqtigaasna ciidankii ayaa warkiisa ogaaday oo ahaa qaar ku daba jira oo baadi goobaya ninkan. isagoo gaadhigiisii watana waxaa arkay ciidankii oo eryaday. ciidankii way eryanayeen ninkan isaguna wuu ka baxsanayay oo wuu ka cararayay. arrinka la yaabka badanna wuxuu yahay isagoo ciidankii ka ordaya oo gaadhigii wada ayaa wuxuu soo bixistay moobilkiisii mar labaad, wuxuuna soo galay Facebook Live mar kale. live-ka dhexdiisana wuxuu ka lahaa ciidankii ayaa eryanaya oo raba inay qabtaan. I got the cops on me, bro. Hey, yo, what's good, bro? You know I love you, my everything I love, you know I love you. You feel me? Chrissy, I love you. I'm about to let these can have it.
sidaad arkayseen isagoo gaadhigii wada oo ciidankii ka baxsanaya ayaa wuxuu galay shil. dabcan wax lala yaabo maaha qof gaadhi ku wada xawaare aad u sareeya oo ka hordaya kana baxsanaya ciidanka, dhinaca kalena moobil gacanta ku haysta oo live ku jira. waa arrin iska caadiya inay sidan oo kale ku dhacdo. markii uu shilkaas galayna waxaa loo qaaday ninkan isbitaalka, manuu dhiman ee waxa soo gaadhay dhaawacyo yaryar. intaa kadibna wuxuu ka soo baxay ninkan isbitaalkii waana la soo xidhay. markii maxkamadda la saarayna ninkani wuxuu qirtay wax kasta uu sameeyey. wuxuu qirtay inuu dilay islaantii iyo wiilkii yaraaba, si fudud ayuuna u qirtay isagoo u muuqda inaanu damba ka lahayn arrinta. weliba wuxuu ka dhex sheegay maxkamadda dhexdeedii inuu gabadhaas jeclaa welina uu jecel yahay, laakiin way khiyaantay ayuu yidhi. si kastaba ahaatee waa la xukumay ninkan waxaana lagu xukumay xabsi 60 sannadooda. hadda wuxuu jiraa 25 sanno. 60 sanno oo kale haddii uu ku jira wuxuu soo baxayaa marka uu yahay 85 sanno. waa haddii uu noolaadaba. dhab ahaantii waa wax laga naxo wuxuu ninkani sameeyey. wiilkii yaraa ee 6 jirka ahaa ee aan wax dembiya gelin, iyo islaantii gurigeeda iska hurday ee ninkani uu dhibaatada u geystay. wax dembiyana kumay lahayn iyagu waxaan dhacay oo dhan. keliyana dembigoodu wuxuu ahaa in inantoodu ay xidhiir la samaysay qof aan wanaagsanayn. intaasi uuna ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, sabskaraybna saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.